kulanti wacan daawadiil ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida waa 26ka bisha 11 sanada 2019 qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah madaxweyne Farmaajo oo kulan qarsoodi ah la qaatay xeer ilaaliyaha guud ee Qatar hadaba waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa sidoo kale waxaad maqli doontaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo shaaciyay sababta uu ku diiday madasha xisbiyada qaran Sheekh Shariif oo iska diiday dalab culus oo uu hordhigay Fahad Yaasiin ra'iisul wasaare Khayre oo safar aan horey loo sii shaacin ku tagay dalka Qatar iyo 6 waxyaabood oo aadan ka aqoon taariikhda Xasan Daahir Aweys ayaa qeybaha dambe ee warkayaga aan idinku soo gudbin doonaa intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan aynu ku bilawnay madaxweyne Farmaajo oo maalmihii u dambeeyay ku sugnaa magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya halkaas uu kaga qayb galay shir uu UN ka soo agaasimay wuxuuna la kulmay xeer ilaaliyaha guud ee Qatar Dr. Ali bin Fattah Al-Mari Dr. Ali bin Fattah Al-Mari ayaa dhankiisa waxa uu booqasho ku joogay magaalada madaxda dalka dhaca geeska qaarada hodanka ee Afrika shirweynaha oo 3 maalmood socday ayaa waxaa diiradda lagu saaray sidii horumarinta dadka iyo dhalinyarada loogu dari lahaa ajandayaasha caalamka madaxweyne Farmaajo iyo Dr. Ali bin Fattah Al-Mari ayaa ka wada hadlay xaaladda labada dal xiriirkooda iyagoo isla gartay in labada dal ay iska kaashadaan xoojinta shuruucda iyo la dagaalanka musuqmaasuqa kulanka waxaa sidoo kale goobjoog ka ahaa safiirka xukuumadda Dooxa u fadhiya wadanka Kenya kaasoo lahaa qabanqaabada isku keenida labada mas'uul sida ay qortay warbaahinta dalka Qatar madaxtooyada Soomaaliya ayaa qarisay kulanka iyadoo qaybteeda warfaafinta aysan saxaafadda u soo bandhigin kulanka magaalada Nairobi ku dhexmaray madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Dr. Ali bin Fattah Al-Mari maalin ka hor Qatar ayaa kamid ah dawladaha aadka ugu dhow maamulka Farmaajo isla markaana ka taageera dhanka maaliyadda iyo dhismaha ciidamada iyadoo dhawaan ku wareejisay sanad ciidan iyo gaadiid dagaal dhinaca kalena siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo u waramayay TV-ga Universal ayaa ka hadlay sababtii uu xisbiga wadajir uga mid noqon waayay madasha xisbiyada qaran ee dhawaan looga dhawaaqay magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sababta ku sheegay in markii horeba ay soo jeediyeen in madasha aysan yeelan hoggaan keliyana ay samaysata xiriiriye balse ay hadda yeelatay hogaamiye taasina ay ku diideen sida uu hadalka u dhigay sidoo kale waxa uu sheegay in madasha ay kala midaysan yihiin in laga wada shaqeeyo sidii ay u dhici lahayd doorasho lagu qabto waqtigeeda oo dhacda si xor oo xalaal ah aragtida xisbiga ayaa go'aansaday inaan hadda laga mid noqon doodaha madalada la xiriira dadka isku aragti kama ahan hal hadaf ayaa wada leenahay in doorasho xilligeeda la qabto in laga wada shaqeeyo maadaama madasha ay ahayd madal dadka aysan hal xisbi ka mid noqonin qof walba madaxtinimadiisa damaciisa iyo howlihiisa uu leeyahay in laga wada shaqeeyo doorashadii sidii ay ku dhici lahayd oo garoonka ciyaarta loo wada geli lahaa ayaa hadda annaga oo noo muhiimsan maba aaminsaneen in hoggaan la sameeyo in xiriiriye la sameeyo ayaa ujeedkeedu ahaa ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ugu dambeyntii waxa aad u cambaariyay xayiraadii la isku dayay in dhawaan lagu sameeyay madaxweynayaashii hore dalka waxaana ugu baaqay xukuumadda Soomaaliya inay ilaaliso isla markaana ay dhowrto dastuurka iyo shuruucda dalka u yaala hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo bishan Muqdisho looga dhawaaqay madal cusub ay ku midaysan yihiin inta badan hoggaanka xisbiyada waxaana gudoomiye loogu doortay madaxweynihii dawladda ku meel gaarka ahayd mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed geeska kalena ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa maanta gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar wafdiga uu hogaaminaya ra'iisul wasaaraha ayaa waxaa halkaasi si diiran ugu soo dhaweeyay madaxda sare ee dalkaasi ujeedka safarka ra'iisul wasaare Khayre ayaa ah sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal iskaashina dhinacyada amniga iyo dhaqaalaha loo yeelan lahaa sidoo kale mas'uuliyiinta labada dhinac ayaa ka wada hadli doona xaaladda dalka gaar ahaan fatahaadii ugu dambeeyay ee ku dhiftay qaybo ka mid ah Soomaaliya ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa maalmihii la soo dhaafay safar shaqo ku joogay Faransiiska iyo Belgiumka isagoona ka soo qayb galay shirka nabadda Paris ee lagu qabtay magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska
dhinaca kalena madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa iska diiday dalab uu hordhigay agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo saaxiib dhow la ah dowladda Qatar. xubno ka tirsan xisbiga Himilo Qaran ayaa si hoose inoogu sheegay in waxyaabaha uu Fahad Yaasiin Sheekh Shariif oo ah hogaamiyaha madasha xisbiyada qaran kala hadlay ay ka mid ahaayeen in xukuumadda lagala shaqeeyo sidii muddo kororsi u sameyn lahayd oo ku siman 2 sano. arrintan ayaa la sheegay in Fahad Yaasiin uu sababeeyay dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo ay wajahayso culays siyaasadeed oo kaga imaanaya gudaha iyo dibadda, isla markaana loo baahan yahay in waqti dheeraad ah u hesho sidii loo dhameystiri lahaa qodobada dastuuriga ee loo doortay, sida in doorasho qof iyo cod dalka ay ka dhacdo iyo in la dirdirgeliyo qabyo qoraalka dastuurka. madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa iska diiday dalabkaasi isagoona meesha ka saaray inaysan jirin wax la yiraahdo muddo kororsi, loona baahan yahay in xukuumadda doorashada waqtigeeda ay ku qabato. ma cadda ilaa iyo hadda nooca doorasho ee dalka ka dhacaysa, balse waxaa jira guux ah in dowladda ay damacsan tahay in magaalooyinka nabadda gaar ahaan magaalada Muqdisho ay ku qabato doorasho qof iyo cod iyadoo isku keenaysa dhalinyaro kooban oo la soo xulay. xoogaga wadaniyiinta ayaa loo badinayaa in dowladda ay ku gasho doorashada si mar kale uu soo noqdo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo una hogaamiyo dalka muddada 4 sano ee soo socota. markana daawadayaal ku soo dhawaada 6 waxyaabood oo aadan ka aqoon taariikhda Xasan Daahir Awees oo hadda u xiran dowladda federaalka ee Soomaaliya. xasan daahir awees waxa uu dhashay sanadkii 1935 waa siyaasi Soomaali oo caan ah kaas oo ay Mareykanka ku dareen liiska argagixisada sanadkii 2011. awees waxa uu ahaa madaxa ugu sareeyay ee golayaasha maxaakiimta islaamiga ee ka koobnaa 90 xubnood, waxaana loo arkayay inuu ahaa midka ugu xagjirsanaa ururka maxaakiimta islaamiga ah kaas oo xukunka shareecada wax ka dejiyay, sidoo kalena toos ay kaga amar qaadan jireen maleeshiyaadkii maamuli jiray caasimada Soomaaliya ee magaalada Muqdisho 2006. marka loo eego guddiga fulinta oo 8 xubnood ka koobnaa waxaa hogaamin jiray sheekha qunyar socodka ahaa ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed. hadda ka hor BBC-du waxay dhahday weli ma cadda midka awoodda badan Sheekh Shariif iyo Awees, waxaana xusid mudan in Awees hogaanka midowga maxaakiimta islaamiga inuu iska casilay 28 Diseembar sanadkii 2006, waana markii maamulkii iyo xukunkii maxaakiimta islaamiga uu soo idlaaday. taariikhda Xasan Daahir Awees markii dalka uu ka talinayay dowladii Maxamed Siyaad Bare waxaa xusid mudan in Awees uu ahaa korneel ciidamada qaranka Soomaaliya ka tirsanaa, wuxuuna ka qayb qaatay dagaalkii 1977 ee Soomaaliya iyo Itoobiya dhexmaray, markaasna wuxuu ka mid noqday geesiyaashii dagaalka ka qayb qaatay ee kartidooda la bogaadiyay. 1994 ilaa 2012 Awees iyo waayihiisii Itixaad al-Islaamiya. xasan daahir Awees wuxuu qayb ka ahaa ururkii al-Itixaad al-Islaamiya ee inta badan la wareegay Soomaaliya kadib markii dowladda dhexe ay burburtay. laga soo bilaabo 1991 ilaa 1998 ururkani bartay awoodda ugu weyn ku lahaayeen waxay ahayd gobolka Gedo, waxaana hogaamin jiray xaakimkii hore ee dowladda Soomaaliya Maxamed Xaaji Yuusuf. wuxuuna lahaa ciidan awood badan oo la loodin karin, waxaana xusid mudan degmooyinka ugu caansan gobolka Gedo sida beled Boordhoobe. waxaana dhacday Awees markii dambe inuu Shabeellaha Hoose iska soo degay oo uu xarun ciidan ka sameysay kadib markii lagu murmay khilaaf ahaan cidda hogaaminaysa al-Itixaad, gaar ahaan deegaanka Luuq maamulka laga sameeyay. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa ku qanciyay in xilka laga qaado wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow oo kamid ah saaxiibada dhow ee Villa Soomaaliya. wasiir Islow ayaa muddooyinkii dambe la kulmayay dhaleeco ku aadan inuu dayacay amniga guud ee dalka, gaar ahaan caasimada Soomaaliya ee Muqdisho oo al-shabaab dad badan ay ku dhibaateeyeen. inkastoo eedda wasiir Islow ay badneed ahaydna in mar hore xilka laga qaado, ayaa taageero muuqda iyo mid qarsoon intaba ka helayay wasiirka goowaad ee dalka Xasan Cali Kheyre oo la ogyahay inuu yahay gacantiisa midiga. warar aan ka helnay ila wareede lagu kalsoonaan karo ayaa sheegaya in wasiir Islow uu ku baxayo isku shaandheyn lagu wado in lagu sameeyo xukuumadda Soomaaliya, taas oo sidoo kale sameynaysa xubno kale oo ka tirsan golaha wasiirada ee hadda shaqeeya. sidoo kale intaan ognahay waxaa isku shaandheynta saameynaysa wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo dowladda ku gacan siisay sidii ula wareegi lahayd deegaanada ay gacanta ku hayeen ururka al-shabaab ee gobolka Galgaduud.
ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa doonaya muddo sanadka iyo barka ee u haray inuu la yimaado dardar xoogan oo ku aadan dhanka horumarka iyo dimuqraadiyadda maadaama uu doonayo inuu isku soo sharxo doorashada 2021 lagu wado inay dalka ka dhacdo. guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga intaa. Fadlan haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biiro subscribe sar, sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkaynu halkani soo gelino. waana mahadsantiin.